السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقاليقة وإذن السلامة ميل كستا أدونك aad ka joogtaan waa walaashiin Mareysiman maanta waxaa idin wadaa qiso cajiib ah qisadani waxaa ka dhageystay sheekha hadda magaciisa ma xasuusto marka sheekha si wanaagsan ayuu ugu sheekeeyay anigana aad ayay ii taabatay aad ayayna ii soo jiidatay waana qiso hadda ka taagan bulshadeena Soomaaliyeed adduunka meel kasta ka joogaan waa qiso hadda wadankeena ka jirto oo gabar dhagax lagu garaacay la sheegayo qisada taas oo kale waaye wallaahi aad bay ii taabatay anna waxaa isdhahay bulshada Soomaaliyeed la wadaag inta aanan maqlin inta maqasho way maqashay inta aanan maqlin ugu faa'iideey qisadani wax badanna haddii aad bilow ilaa dhamaad la socdid qisada waxaa ogaa doontaa faa'iidooyin badan inaad ka heli doontid qisada ila dhageysta insha Allah qisadan waxaa ugu magac daraa Saara waxaa la dhahaa gabadha xaqa laga galo iyo sugulle gabadha xaq darada sameysana waxaa ugu daraa 0 marka Saara waxay ahayd gabar aad iyo aad u akhlaaq badan u fiican dhanka diinta ugu fiican soojid saalixad ah ninkeeda aad u jecel asagana wuu jeclaa sugulle gabadhii wax badan Ilaahay wax kasto u dhameystiray nimcadiisa nin lacag haysto jecel qurux badan ayadi qurux badan guri qurux badan nolol qurux badan laakiin ubad ayaa ka dhinay noloshooda muddo sanado ah markay isqabeen Saara waxay jeclaatay inay awlaad dhasho awlaadda Allah ayaa bixiya laakiinse ay dadaal sameeyaan odageedii ayay u sheegtay waxay dhahday inaa ubad Ilaahayna siiyo laakiin dadaalka aan la imaano dhakhtar aan tagno dhakhtarka tageen waxaa la dhaca caafimaadkiina 100% uu fiican yahay dhakhtar kale tageen sidoo kale waxaa la labadiinaba waa fiicantiin dhakhtar saddexaad ayay tageen waa fiicantiin aan lahay maadaama caafimaad darro aysan jirin oo caafimaadkiina 100% waa fiicantiin waa dhali kartiin la dhahay laakiin alla xaqiisa waaye gabadhii waxay u laabatay Allah waxay tiri Ilaahayow ubad khayr qabaysi habeen iyo maalinba Allah ayay baryeysay salaatu leyl ayay u kaceysay Allah ayay baryeysay maalintii dambe way xanuunsatay markay xanuunsatay waxay dhakhtar ayuu sugulle geeyay waxaa la dhahay uur ayaa leedahay aad bay u faraxday sugulle yaayadaba aad bay u farxeen waxay dhaheen maasha Allah ubadka sugayna waaye Saara waxay bilowday marka waxay tiri hool iyo shaqo iyo waxaas ma jirto gabar shaqaale ayaa u baahan odageedu wuxuu dhahay shaqaale qabso inta u baahan tahay shaqaale qabso gabadhii islaan diriskeeda ayay u tagtay waxay dhahday waxaa rabaa in aad caawiso ama gabar ii keentid islaanta waxay tiri anigaaba lacagta u baahan anigaa ku caawina okay way imaatay islaam waa yeela ayay ahayd way u shaqaysay dhowr bilood kadib way xanuunsatay markay soo dhawaatay dhalmadeedii soo dhawaatay ayay duqda xanuunsatay waxay dhahday waan xanuunsanahay laakiinse gabadhayda ayaa joogto gabadhayda ayaa booskeyga galayso anigana waa la joogayaa haye waaye gabadhii ayaa loogu keenay xaafadda way u joogtay waxay ahayd gabar aad iyo aad u nadaafad badan dhanka jirkeeda ha ahaato sida isku qurxiso aadna u qurux badan waxay sameysay Saara maalin ayaa odageedii ayadoo fadhiga fadhaan 0 soo gashay 0 waxay dhahday ayadoo carfeyso oo qurux badan oo libisan ayay albaabka ka soo gashay Saara aad bay u maseertay waxay dhahday aroos miyaa u socotaa maxaa sidaan dhan iskugu carfisay oo sidaan dhan ugu soo libisatay ma aroos ayaa u socotaa mise guri inaad ka shaqeysaa u socotaa gabadhu waxay dhahdaa aniga intayna hadlan odageeda hadla wuxuu dhahay gabadha maadaama nadaafadeeda ka shaqeynayso qof wasaqay inta noo adeegi lahay ayada noo fiican iska dhaaf nadaafadeeda ha wadato
inta qofku nadaafadeeda lagu wisuusaya ama wasaq badan ama urayso noo shaqeey lahayd iska daa. sidii ayuu ku qanciyay okay iska dhahday gabadhina shaqadeeda ayay iska gashay kadib Saara way dhashay. markay dhashay qol ayaa loo diyaariyay cunuga ayadana qolka waxay tiri cunugeyga maadaama lagu qalay ma soo degdegi kari cunugeyga ayaa la joogayaa inta iyaga dhamaanayso umusha ka baxayo. odageedu wuu ka okolaaday meeshii iska degtay. maalin maalmaha kamida maalin kasta wuu soo mari jiray horta wuu soo maraa caafimaadkeeda weydiinaa cunugiisa dhunkana wuu bixi jiray. maanta ma uu soo marin albaabkiisa kusii baxa ayadana habeenku way xanuunsatay way yaabtay waxay tiri maxaa shaqada markuu aaday wuuna soo mari jiray caafimaadkayga weydiin maxaa qaldan. way baxday Saara qolkiisa inay tagto bal wuxuu ka xanaaqay soo ogaato. qolkiisa markay tagtay waxay ugu tagtay gabadhii zero ahayd oo labisan dharkeedii jiifka labisan sariirta adriisha camal u jiifto. Saara way naxday waxay tiri maxaa ka qaldan maxaa qolkaygu keenay. maxay ku jawaabtay qaybta labaad ayaa la soconaysay insha Allah. subscribe-ka naga iloobina share like-ta kaliya insha Allah wixii qisadani ka dareenteen oo yacni waxa nusqaan ay ii sheega commentiga igu reeba waxay aga bedelayo haddii ay jirto wax ciladana ii sheega insha Allah. subscribe-kana ha iga iloobina midda kalena qaybta labaadna la socdo insha Allah. qaybta labaad ayaa soo gelinaya wabillahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.